Salaamullaahi calaykum. Toddoba caado ama habdhaqan oo guur ugu leeyahay badan leh adduunka ay isku guursadaan dadyoga ku nooli. Way kala duwan yihiin caadooyinka iyo habdhaqanka ay isku guursadaan dadyoga ku kala nool daafaha dunida. Waddan kasta ama qabiil kasta waxa uu leeyahay habdhaqan u gaara ay isku guursadaan. Balse waxaa jira dadyo leh habdhaqan u gaara aadna uga duwan kuwa kale. Hadda waxaan la wadaagi doonaa dhowr habdhaqan ama caado oo aad u la yaab badan runtii daawasho wanaagsan. Indonesia. Caruusada waxa ay marisaa ilkaheeda khad madow xilliga arooska, sidoo kale waxay u dhaqdaa cagaha ninkeeda si ay u dareensiiso in ay u shaqaynayso inta ka dhiman nolosheeda. Sidoo kale caruuska waxaa laga ilaaliyaa cagihiisa dhulka inay taabtaan ilaa intii ka tegayaan hoygooda. Jasiiradda Java waxa ay isku hadeeyaan labada caruus 25 jeer, waxaana dhaqanka laga dhaxlay boqorkii haysan jiray jasiiradda oo aaminsanay inuu bilaayada ka ilaalinayo lamaanayaasha isxalfaday. Qabiilada Chobis ee Afrika. Maalinta arooska, qabiilka Chobis waxa ay caruuska fartiisa dhex geliyaan carabkiisa inta la dalooliyo. Sidoo kale gabadhana waxa la mudaa irbad carabka iyo bishmaheedaba. Alaskimo waxa uu ninku urinayaa urta gabadha, hadduu urteedaas uu ka helo waa uu guursanayaa, haddii kalena wuu iskaga tegayaa. Waxa uuna ku bedelanayaa mid jaarkooda ah ama saaxiibadeed si uu ugu muujiyo inuu weliyada jecel yahay. Amazon. Mid ka mid ah qabiilada dega Amazon 7 cisho ka hor guurka waxa uu caruusku soo ururinayaa tirada ugu badan ee digaaga jooga tuulada, waanu qalayaa dhammaantood, kadib waa uu karinayaa, waxa uuna cunayaa madaxyadooda, lugahoodana waxa uu dul saarayaa firaashkooda. Jasiiradda Borneo. Waxa iska mamnuucan labada caruus in ay galaan xamaamka muddo 3 cisho ah guurka kadib, iyagoo xaajo iyo qubaysba u aadin. Waxayna aaminsan yihiin dhaqankaasi yahay guusha guurkooda. Si ay u xaqiijiyaan hadafkaasna waxay iska ilaaliyaan in ay cunaan cuntooyinka badan iyo sharaabkaba. Mid ka mid ah qabiilada dega Papua New Guinea waxa ay caruusu dugaysaa far ka mid ah faraheeda si ay u weynayso ninkeeda, markuu ka dhintana waxa ay jartaa qaar kaloo ka mid ah faraheeda lana aastaa meydka ninkeeda.